suuragalta waxaan rabaa inaan idinla sheergaliyo haddii aan lu yidhaahdo koobtan aan joogo eega waxaa weeye aeroboortka internationalka aadan cadda airport ee muqdisho waxaan ka soo duulay saaka Kismaayo diyaaradda markaan ka soo degnay anoo happy oo caadi oo kayaan diyaaradda soo raacnay diyaaradda markaan hadda ka soo degnay waxaan u imaaday qalaasi iyo buuq iyo saxmad iyo reeriyo laga nixiyay iyo dad aad noo soo wacayo ninka cali ahaaba dhibaato ku dhacday dhammaan ummadda Soomaaliyeed aad baan idin salaamayaa waan idin jeclahay sida haddaad ii diirnaxdeen oo aniga dhibaatadayga ka diirnaxdeenna waad ku mahadsantiin laakiin waxaan rabaa inaan idiin sheego aniga dhibaatadayda ma gaarin waan caafimaad qabaa cidi ima sumaynin xayi baan ahay nin dhulkiisii joogaan ahay balaayi iyo baas iyo gardaami iyo balaayana midaan sugayna ma midaan sugaya maayo midaan dadka samayn doonaa ugu toona waxaan rabaa marka inaan la hadlo dadka Facebook isticmaalaya ama website-yada leh ee linkiga raadinaya dadka website-yada iska leh ee soo qoray cali baa la sameeyay cali baa dhibaato ku dhacday oo Kismaayo lagu waxay ilmaada reer waxaan doonayaa idin sheego warku hadduu been yahay dadka dhibaato baad ku samaynaysaan mooyeen wax faa'iido oo soo wadaan runtii aniga baa istaataabtay oo run moodayba waxa ka sheeganaysaa dadka kale xagee joogan marka imise maqaal oo qoraal website-yada la soo diray waxaan rabaa inaan idin sheego anigu waan caafimaad qabaa wax ismeeyeen ma jirto qofku hadduu xanuunsado ilaahay baa xanuunka keena ilaahay baana caafiya laakiin hadduu wax ku gaaro inaad qof bini'aadam miskiis waa xaraam wax aniga gaaray ma jirto waan caafimaad qabaa waan nabad qabaa 7 cishaan joogo magaalada Kismaayo soo dhaweyn qurux badan iyo muxubiye kalgacal fara badan oo aan la soo koobi karin baan kala soo kulmay dadkayga mana maxaan ku raadayay dhibaatana kala maana kulmin sugina maayo waxaan rabaa marka inaan idin sheego dadku ma wada aha dadku waa dad wanaagsan oo wanaaga ummadda garanaya dadna waa dad xun oo dadka wanaagsan ee isla socda doonaya inay kala dilaan oo xumaan iyo balaayo ay meesha ka waxayaan waxaan idinka codsanayaa inaad wanaaga faafisaan inaad xumaanta faafinin waxyaalaha Facebook ku soo qorteenna hadda ma aha markii ugu horeysay meeqa jeer hore la soo qoray caldaanta waa la dilo oo dhinto halkan oo ku dhintay war ilaahay baa wax dila ilaahay baa dadka xanuunka ku keena